الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota. kow Generaal Asad Cismaan Cabdulaahi wuxuu helay 31 cod. laba Siciid Cabdulaahi Deni wuxuu helay 35 cod. 66kii cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 ama 23 mudane Siciid Cabdulaahi Deni. waana u yeerayaa inuu soo taago halkan kelmadiisana uu yiraahdo. بسم الله الرحمن الرحيم. قدونك قولها وكيلة استمادة حبناها بارلمانك صاحبدي ترتنك أنكوذا جرني دمان مرتشرفك هالك سكوتمت علماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hagaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo deganaan kuna dhacday si nabadgelyo ah. waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland ciidamo iyo rayidba. waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas'uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan, inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliya ka fakaraan in waji cusub oo walaalnimo ah u bilowdo. doorashadii maanta halkaas ku eg tahay dhibaatadii iyo isjiijiidkii ay lahayd marxaladii aan ku jirnay doorashadu way dhamaatay. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Generaal Asad oo aan ku soo harnay wareegii ugu dambeeyay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا شرعي iyo dastuurka Puntland qabo waxa sharci ah in madaxweynaha golaha hortiisa iyo dadweynaha lagu dhaariyo. waxa dhaarinaya gudoomiyaha maxkamadda sare sida dastuurka qabo. gudoomiye ku soo dhaw. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dawladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego wallaahi ba waa igu wallaahi. wasalaam. Thank you. Yes, well. Yes, well.
madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu fadhigiisa ku soo laabto madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu fadhigiisa ku soo laabto madaxweynuhu si shaqadu u socoto madaxweyne soo fadhigaa ku soo laabo Oh,